wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafadhi oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada Hargeysa waxa uu sheegay in sanadka dalka Sacuudi Arabiya ay shuruudo cusub ku soo kordhiyeen qaadashada xoolaha Soomaaliland isla markaasna ay ku xidheen qadda ogolaashaha caafimaadka xoolaha laga qaato dawladda federaalka ee Soomaaliya ay bixiso dawladda Soomaaliya marka hore Sacuudigu wuxuu ogolaaday in xoolihii xajka la fasaxo waxaana uu keenay warqad muujinaysa in xoolihii xajku ay fasax yihiin warqadaas waxay wadataa qodobo iyo shuruudo dhowr ah intooda badanina ay tahay shuruudo caafimaad shuruudaha caafimaadku waa kuwa horu jiri jiray iyo kuwa cusub oo lagu soo kordhiyey si kastaba ha ahaatee waxaa waajiba shuruudaha caafimaad in ay wasaaraddu dhammaystirto oo buuxiso si ay xoolahaas ay u helaan oo ugu gudbaan dalka Sacuudi Arabiya xilliga mawsimka xajka waxay awood u leedahay wasaaraddu xanuunadaas kuwii horu jiray iyo kuwa cusub ee la soo kordhiyeyba inay fuliso oo dusha u ridato sidii loo dhammaystiri lahaa ama loo rumayn lahaa inay xoolaheenu iyagoo caafimaad qaba ka baxaan dekedaha ay ka dhoofaan hal shuruuda oo siyaada ah waa inaan hore u arki jirin ayaa sanadkan ku jirta muddaba waxaa jiray rag wareegaya oo qorshahoodu ahaa inay lacag siyaada ah ka dulqaadaan xoolaha iyagoo u maraya qaab maxaan ku dhahdaayey ururo maxaan ku dhahdaayey fayadhowrka ilaaliya ama inay dawladda federaalka dhabarka geliyaan oo dabadeedna ay ka helaan ruqsado u saamaxaya iyagoo dawladda Sacuudi Arabiya la xiriiraya u saamaxaya inay lacag siyaada ah ay ku qaadaan warqadda caafimaadinta waxaa warqadan la socota maanta oo cusub oo uu soo raaciyey Sacuudigu soo raaciyey in warqadda ugu dambaysa caafimaadinta xoolaheena laga bixin doono ama ay bixin doonto dawladda federaalku wasiirku waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay go'aansatay in Sacuudi Arabiya uu si toos ah xoolaha u qaato ama xoolaha Soomaaliland sanadka la joojin doono aanu marka hore u sheegaynaa Soomaaliland iyo dawladda federaalka inay yihiin laba dawladood oo kala duwan halaale wax iskaga jiraan aanay jirin qaybna aanay Soomaaliland ka ahayn federaalka dawlad mustaqila oo xornimadeedii la soo noqotay inay tahay waa marka labaad harana uma dhicin in warqad xamar laga keenay waxaan ku rahday xoolaheenu ay ku dhoofaan haddeerna mid dhacaysa maaha waxaan u sheegaynaa cid kastoo arrinkan ay khusayso inaan xoolo ka dhoofa dekedaheena oo sita warqad laga sameeyey dawladda federaalka ah aanay jiri doonin xoolaheenu ama sidii ay u dhoofi jireen sharciga inagu aynu siin jirnay ayay ku dhoofayaan ama xoolaheenu waynu haysanaynaa haddii aanu Sacuudigu u baahnayn ama aan xajka looga baahnayn waxa weeyaan inaguna xoolaheena awalba waa xidhnaa xoolaheenu way ka xidhnaayeen Sacuudiga mawsimka xajkun baa la furi jiray xoolaheenu mawsimka xajkana way caafimaad qabaan marka uu xajku dhamaadana xoolaheenu waa xanuunsanayaan baa la yahaa waa la xidhi jiray marka waxa weeyaan haddeertana haddii aan loo baahnayn xoolaheena inana uma baahnin inaynu qarannimadeena ku iibsano maxaan ku dhahdaayey xoolaha socodkooda waxaanu markaa u sheegaynaa shacbigeenna inay arrinkaa ogaadaan oo ku baraarugsanaadaan waxaanu arrinkaa isla qaadanay xukuumad ahaan iyo ganacsatada xoolahaba mowqifkaas ayaanu wada qaadanay halkaasaa inay xukuumadda Soomaaliland iyo ganacsatada xoolaha ay ka taagan yihiin shacabkana waxaan u sheegaynaa inay sidaa iimaansanaadaan oo ay qadiyadooda qarannimo maxaan ku rahday ay ka hormariyaan waxyaabaha lagu dagayo ama maxaan ku rahday lagu dhaawacay qarannimadooda maxaa keenay xilligan in dawladda Sacuudigu ay shardi kaga dhigto xoolaha Soomaaliland in warqadooda caafimaadka laga soo qaato dawladda federaalka ee Soomaaliya hore waxaan ugu daray hadalkayga in rag dibad wareegihii ay jireen oo ka dilaalanayay
xoolaha rabay inay ka dilaashaan oo khidmad ka dulqaataan iyagoo ugu dhuumanaya in ay bixinayaan ruqsadda iyagu bixinayaan marka sacuudiga waa lala galay waxa kan cid baana la gashay kamana marna inaguna kama marnin dowladda xamarna kama marna dad is urursaday ayaa waxaan la galay marka waxa weeyaan sacuudigu wax ka yimi maaha waa wax ay geliyeen dad maxaan ku dhahdaa dilaalatahay wasiirka ayaa la weydiiyey bal inuu caddeeyo dadkaasi is urursaday ee arrintaasi sacuudiga ka dhaadhiciyey intaanu ka ognahay kolley sacuudiga iyo koonfurun bay ka dhexeeyaan laakiin hadday dadkaas xafiis ku yeeshaan gudaha somaliland way iska soo bixi doonaan